halkani waa deegaanka fadhigaab waxa uu masaafo ahaan dhinaca bari kaga beegan yahay degmada Garadag in ka badan 30 kiiloomitir waxa ku sugan 3,000 oo qoys oo barakacayaal kuwaasoo isugu jira dadkii ay afeeyeen colaadaha sokeeye iyo kuwa adduunkoodii ku waayay abaarta 4 jirsata ee soo noqnoqotay waxay qarka u saaran yihiin xaalad dhimasho waxa haleelay haraad cunto la'aan caafimaad xumo iyo kaamka ay ku sugan yihiin oo nadaafadoodu hooseyso haddama marwuunka TV u kurgalay si uu wax uga ogaado xaaladooda nololeed ayaa waxay ka dayriyeen rajadooda waxayna baaq u direen dawladda Soomaaliland hay'adaha caalamiga in si degdeg ah loogu soo gurmado waxana hadaladoodii kamid ahaa hooyooyinkan kamid ahay waxa weeye halka kan waxa loogu liitaa laba baahiyood mid waa baahi cunto midna waa baahi caafimaad intaas oo buura 1500 buur inta badan waa la jiifaa aad baa loogu liitaa waxaan u baahanahay in maxay ahayd caafimaad nala soo gaaro maxay ahayd goob caafimaad iyo cuntoba waxaanu nahay barakacayaashii xooli way naga dhamaadeen waxaanu wadna malihin waxaanu goglana malihin waxaanu dhaansana malihin waxaanu qashin iskaga qaadna malihin maxay ahayd haddii aanu ka mid nahay Soomaaliland ay dawladayadii tahay iyo ummadaha islaamka aba waxaanu doonayn salaan kadib meeshan waxa weeye kaamkii fadhigaab la isugu yimi abaartu ka dhacday waxana weeye ilaa haddan abaartu way laba kaclaysay waxa berigi hore loo dhisay kacaanka waa laba kaclay hadarto abaartii baa nagu laba kaclaysay 4 jir bay maraysaa 4 jir waxa weeye waxa kale ka dhacday labadii bilood ee walaalaha ay isku dilay xagga baranka ayaa iyaguna ku soo barakacay marka waxa weeye waxa ka dhacday in meesha macluul ka dhacdo macluushi la arki jiray waxa weeye dad badan ayaa ku dhintay macluul awadi marka waxaan u sheegaynaa cidii ay darayso ee daryeeli kara arrimaha noocaasa waa inay u soo degdeg ugu yimaadaan dhinaca kale xildhibaanada oo kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Garadag oo aan wax ka weydiinay ayaa waxa uu ka dayriyay dhamaanba barakacayaasha ku sugan deegaanada ay ka koobsato degmada Garadag iyo sidoo kale tuulada Ceel Nimcoon iyo barakacayaasha Galciile waxa uu na diray qayladaan degdega dhibaatada abaartu deegaankan ereyadan inta saameysay kulliba inta 20 tuulo ama 20 tuulo Garadag xukunto way abaartan way saameysay wayna ka jira dhibaatada karasharka ka muuqata waxa kale ay ka jirtaa meesha la yiraahdo fadhigaab ka shisheysay leeyahay Ceel Midgaan iyo Galciile halka la yiraahdo ina barka degan yahay labada waxa ka jirta arrin aan taa ka habeen sokayn ama la mid ah loo oran karo waa la mid ayaa ka jirta waxaan leenahay eriyada oo dhan arrinta culayskaas ah jiraan waxaan ka codsanaynaa iyo jaaliyada deegaanadan aan ka hadlayno in arrimahaas dhulkii ka jiraan ay u soo dadaalaan ka war hayaan xaaladooda farax Cabdi Nuur telefishinka caalamiga ee Honkeyval TV kaamka barakacayaasha ee deegaanka Fadhigaab ee gobolka Sanaag.